qalabkan aad u jeedaan waa qalabka adduunka ugu qaalisan waana qalabka shirkad walba ay ku riyoonayso in ay maalin uun soo saarto waxaa la yiraahdaa quantum computers shaqooyinka uu ku qaban karo quantum computers 200 oo ilbiriqsi oo u dhiganta 3 daqiiqo iyo 30 ilbiriqsi kombiyuutarada caadiga ah ama kombiyuutarada loo yaqaan super computers waxay ku qaadanaysaa 10,000 oo sanayin ka badan waa qalabka aan muuqaalkeenan kaga hadlayno ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub haddii aad xiisayso arrimaha la xiriira tiknoolajiyada iyo self developmentiga ama horumarinta nafta kanaalkan waa kanaalkaagii ha iloobin inaad nagu soo biirto muuqaalka like garay asxaabtaadan la sii wadaag aad ay u mahadsan tahay ku soo dhawow mar kale iyo muuqaal cusub waa maxay quantum computers waa kombiyuutarro aad u awood badan waxayna ku dhisan yihiin waxa loo yaqaano quantum physics-ku wuxuu ka kooban yahay waxa la yiraahdo atoms and particles waxaan hubaa inaad xasuusatay chapterkii loo yaqaanay nuclear physics waa haddii aad ku soo qaadatay iskuulka chapterkaasi waxaa lagu baranayay waxa la yiraahdo atoms and particles kuwaas oo ah waxyaabaha laga sameeyo nuclearka iyo waxyaabaha la midka ah sidoo u shaqeeyaa quantum computers caadiyan kombiyuutaradu waxay fahmaan ama ay ku shaqeeyaan luqadda loo yaqaano machine language marka laga reebo dadka bartay IT-ga ma aaminaysaa adigu haddaadan ka mid ahayn dadka bartay IT-ga haddii aan ku iraado luqadda kombiyuutarka uu ku hadlo ama uu fahmayo 0 iyo 1 kaliya wax walbo qorto ama qoraal walbo qorto ma fahmayo wuxuu ku bedelanaya ama uu turjumanaya waxa la yiraahdo 0 and 1 halkii xaraf aad qorto wuxuu u taagan yahay 8 bit ama 8 god oo isugu jira 0 iyo 1 mid walbana wax ayuu yaqaanaa markaad qorto Faarax Maxamed Jimcaale ama magacaaga aad qorto automatic waxaad arkaysaa answerkii oo soo baxay ama jawaabtii wax walba taabato arkaysaa laakiin waxaa jira process dheer oo mid walba uu soo maray haddii aad qorto Ali ama Ali oo ka kooban 3 xaraf ALI mid walba wuxuu ka kooban yahay 8 god ama 8 bits ayuu ka kooban yahay oo 0 iyo 1 isugu jira 8 maraan ku dhifano waa 24 god kombiyuutarada caadiga ah ama machines-ka luqadaas ayay fahmaan oo ay ku shaqeeyaan haddaba maxaa ka duwaya kombiyuutarkan quantum computers kombiyuutarada caadiga anaga aan isticmaalno kombiyuutaradeena caadiga ah waxay ku shaqeeyaan aan dhahnay 0 iyo 1 haddii kombiyuutarkan aad shaqo u dirto ama uu shaqo process gareynayo waa on shaqo kale haddii loo diro soo tii kala haya oo on ahayd tankii ay gali doontaa oo waa off oo laba shaqo isku gees process gareyn karo halka quantum computers uu asaga awood u leeyahay in labada shaqo oo mid on time midna off tahay ama 0 iyo 1 inay labadoodu si siman ay u wada shaqeyn karaan taasina waa waxyaabaha quantum computers awood u yeelaya taas oo ka dhigaysa in shirkadaha adduunka ugu waaweyn markaasi shirkad walba ay ku hamayso in ay ku soo biirto saaxadda quantum computers muuqaalkan intan la eg iyo in ka sii weynba ayuu la egyahay quantum computer oo intan la eg oo aan kuu sheegay in uu ku qaban karo shaqo 10,000 oo sano lagu qaban lahaa 4 daqiiqo ayaa kululaanaya maadaama processing aad u weyn iyo shaqooyin aad u weyn oo halkii marba uu ranganaynayo oo billions oo markaasi processing uu sameynayo heerkulka kombiyuutarkan lagu ilaaliyo oo lagu qaboojiyo wuxuu ka hooseeyaa 0 macnaheedu marka aan ku leeyahay haddii mar uu heerkulku 0 gaaro heerkulkaasi waa baraf arag dhan baraf ayuu noqonayaa wixii ka sii hooseeya waxaa laga yaabaa qofkii banaanka u baxa inuu asaga baraf caadi noqdo uu dhagax noqdo heerkulkaas 0 ka sii hooseeya ayaa lagu qaboojiyaa si markaasi processingkiisa uu sii wado taasina waxay tusinaysaa shaqada aad ku tirada badan halkii marba uu qaban karo quantum computer haddaba muxuu faa'iido u leeyahay quantum computers waxay faa'iido weyn u leeyihiin qaybo badan oo ka mid ah nolosha aadanaha sida security-ga iyo ilaalinta xogaha oo ay ka mid yihiin qarinta xogaha iyo fariimaha oo loo yaqaano data encryption ama end-to-end messages taasoo ku adkeynaysa tuugada internetka inay wadada ka ugaarsadaan fariimaha dadka ay isu dirayaan oo qof ka soo baxaysa ilaa qof kale u tagaysa from sender to receiver fariimaha ay wadaagayaan ayay ka ilaalinaysaa ama ay ka caawinaysaa in encrypted lagu sameeyo oo tuugada internetka ah ay awoodi waayaan inay wadada markaasi ka laacaan oo ay ka ugaarsadaan xisaabinta kiimikada ama waxa loo yaqaano chemistry computing iyo horumarinta daawooyinka oo ah in la soo saaro daawooyin cusub oo lagu daweynayo cudurro horey u jiray
oo markaasi daawooyinkooda aan horay loo haynin. Horumarinta iyo wax ka bedelidda qaabkii loo sameyn jiray xisaabinta maaliyadaha, cyber security-ga iyo amniyaadka internetka markaasi in uu wanaagsanaado oo aad loo adkeeyo. Fududaynta saadaasha hawada. Waxaan maqalnaa maalin walba waxaa soo socdo ama waxaa dhici doona duufaano, waxaa dhici doona dayax-madoobaad iyo wixii la mid ah. Dhammaan shaqooyinkaas waxaa fududayn doona quantum computers. Markaas barbar dhigno quantum computer iyo classical computer ama kombiyuutarada caadiga anaga aan isticmaalno ama kombiyuutarada kale oo quantum computers ka ahaynna, muuqaalka bilowgiisa ayaan ku soo sharaxnay inay big difference u dhaxeeyaan oo laba way oo kala duwan ay ku shaqeeyaan. Taasina kombiyuutarada ku dhisan quantum physics-ka ee loo yaqaano quantum computers-ka ay ka dhigayaan kombiyuutaro adduunka ku cusub, shirkad walbana ay ku riyoonayso maalin uun inay soo saarto. Ugu dambeyn, shirkadaha Google iyo Microsoft waxay ku loolamayaan soo saaritaanka iyo horumarinta kombiyuutarada quantum computing-ka. 2 asbuuc ka hor ayaa la soo daabacay shirkadda Quantium iyo Microsoft in ay markaasi soo saari doonaan quantum computers cusub iyo sidoo kale in ay xaliyeen errors iyo cilado ka dhacayay quantum computerska oo hore xal lagu lahaa ay heleen wadooyin cusub oo markaasi xalkaasi ama errorkaasi lagu xalinayo. IBM oo ah ayadana shirkad caan ah oo tiknoolajiyadda aad dhexdeeda caan uga ah, productigeedana dunida oo dhan laga adeegsado inta badan, ayaa soo saartay quantum developerskeedii ugu horreeyay ama dadkii uga shaqayn lahaa markaasi ama u develop garayn lahaa quantum computers. Muhiimadda uu leeyahay tayeynta wax soo saarka, ilbaxnimada, innovationka ama ikhtiraacyo cusub oo ku salaysan cilmi baaris una baahan tiknoolajiyad horumarsan ayuu ganacsi walba isha uga hayaa dunidan cusub ee loo yaqaano quantum computers. Taasina waa sababta aan u jeclaaday in aan muuqaalkan kaga hadlo quantum computers. Waa muuqaal xiiso leh, waa arrimo xiiso leh, waa warbixino xiiso leh. Waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad ka faa'iiday, inaad ogaatay quantum computers muxuu yahay, sidoo u shaqeeyaa, kombiyuutarka caadiga muxuu uga duwan yahay, muuqaal ahaantiisa, awood intuu la og ayuu leeyahay, yacni shaqooyinka uu qaban karo uusan kombiyuutarkan qaban karin oo 10 kun oo sano ay ku qaadanayso inuu kombiyuutarkan qabto inuu asagu 3 daqiiqo wax ka yar uu ku qaban karo. Faa'iidooyinka uu nolosheena u leeyahay, waxyaabahaas oo dhan in aad fahamtay ayaan filayaa. Muuqaalkan haddii aad ka heshay, asxaabta la sii wadaag, like gareey, hana ilaawin inaad nagu soo biirto. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.